Assalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada cashirkeeni koowaad ee certified ethical hacking waa Dose attack waa tool kaasoo loogu talagalay in serverka looga saaro website-yada kuwooda daciifka ah. Okay, haddaan ku qorno hadartan Celsius GitHub aan ku qorno Google-keena waxay noo soo baxay GitHub-ka uu ku jiro code-ka Celsius. Okay, code-ka ayaad soo koobisanaydaa kabacdi Kali Linux-kaaga ayaad furanaydaa sida ujeedid waxaan qorayaa git clone kabacdi waan geliyay sida ujeedid already wuu kugu jira ayaa la dhahay. Okay, marka waxaa gelinaydaa sidoo kale cd Celsius description-ka ayaa idin soo dhigayaa commands-ka. Okay, xoogaa waan yara qaladnay commands-ka waan saxaynaa. Celsius ayaa ka maqan. Okay, Celsius cd Celsius. Okay, sida ujeedid waan gelinay. Okay, waxa ku xigo commandiga ku xigo waa commandiga oo gcc space hyphen 0 kaas ayaa soo koobisanaydaa basta ayaa ku leedahay. Okay, hadda basta ku dhahno sida ujeedid waa kaasaa basta ayaan ku dhahnay. Okay, basta waan ku dhahnay sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa qaybtan oo ah /Celsius ib port aniga laakiin qaybta ugu horeysa bis ayaan soo qaadan. Okay, haddaan dhahno Kenya website-yada Kenya ayaan fiirinaynaa. Okay, wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya website-koodaas ayaan rabnaa in hawada ka saarno oo ku subino Dose attack. Okay, inuu shaqeeyahay bal aan eegno. Okay, marka qaybtan dhaxdan waa soo koobisanaydaa www inta ka bilaabato ilaa qaybta ugu dambeyso. Okay, meeshan ayaa imaanaydaa /Celsius www basta ayaa sidii ugu leedahay space 8 marka hadduu https yahay 443 dhax kartaa. Okay, refresh haddaan dhahno bal aan aragno inuu website-kiisii shaqeynayo iyo in kale. Okay, refresh ayuu ku jiraa. Okay, sida ujeedid. Okay, hadartan website-kii hawada ayuu ka baxay sida ujeedid. Waa wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya website-kooda waaye. Sidaas ayaan ugu xirnay. Haddaad rabtid saacado waa ka xiri kartaa adoo hawsha Dose attack ku hayo. Marka qaabkaas ayaa loo suubiyaa Dose attack. Okay, hadda joogo control C haddaan dhahno control C ayaan leenahay. Okay, hadda website-ka aan ku laabano refresh haddaan hadday hadda website-kii caadi u shaqeeyay. Marka arrinkan waxaa la dhahaa Dose attack ayaa la dhahaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.